waa gabar 16 sano jir oo dhiganaysa dugsiga sare, waalidkeedna waa kuwo aad u wanaagsan oo dhowrsan. Iyadoo yar ayay xafiday Quraanka Kariimka, waqtigeeda ugu badanna waxay ku qaadataa salaad, Qur'aan iyo adkaar akhris. Waqtiga iskuulkana waxay isku daydaa inay saaxiibadeed waaniso si degan oo aadaab ku jirto, inay joogteeyaan wanaagga iyo cabsida Alle iyo inaan lagu xadgudbin dadka kale. Waxaa fasalka la dhiganaysay gabar isla weyn oo aabaheed ka mid ahaa taajiriinta magaalada. Maalin ayay ka codsatay inay tinteeda asturto oona xirata dhar wanaagsan oo cawradeeda asturaya. Way xanaaqday gabadhii waxayna ku tiri, maalin aan maanta ahayn ayaan kaa argudan doonaa. Gabar yahay jirkeeda dabooshay. Maalintii xigta way soo kacday gabadhii dhowrsanayd, waxayna dukatay salaadii subax, quraanna way akhrisatay. Kadibna waxay gashatay dharka iskuulka. Markii ay quraacatay ayay ka soo baxday gurigeeda. Intii ay sii socotay wadada, waxaa la ag istaajiyay gaari qaali ah, waxaana ka soo degay wiil. Inta hambaaray gabadhii ayuu qaybta dambe gaariga ku riday, wuuna kaxaystay. Qasri weyn hortiisa ayuu ku ag joogsaday, wuxuuna isku dayay inuu furo qaybtii dambe ee gaariga dhowr mar, laakiin ma uusan awoodin. Wuxuu u geeyay saaxiibkiis oo makaanig ahaa si uu ula furo, laakiin way awoodi waayeen inay furaan, maxaa yeelay qaybtii dambe ee gaariga waa isku dhegtay, sidii in la isku alxamay oo kale. Isla markaas wuxuu afduubihii ka baqay inay gabadhu dhimato. Wuu fikiray, wuxuuna go'aansaday in gaariga uu u geeyo askarta, uuna isku dhiibo intii aysan gabadha ku dhiman qaybta dambe ee gaariga. Waxay isku dayeen askartii inay furaan dabada dambe ee gaariga, laakiin ma aysan awoodin. Mid ka mid ayaa wuxuu dhahay, waxaa keentaan shiiq ku akhriyo Qur'aan, wuuna furmi doonaa insha Allah. Xaqiiqdii waxaa yimid shiiq caan ah, Qur'aan ayuuna ku akhriyay, si kadiis ayayna ku furantay qaybtii dambe ee gaariga. Waxayna arkeen gabadhii oo si xasiloon isaga fadhisa meesha. Wuxuuna ku yiri shiiqii gabadhii, maxaad samaysay kadib markii lagu soo afduubtay? Waxaana ku arkaa inaad xasiloon tahay, iyadoo meesha aad ku jirtay ee tahay meel xun. Waa maxay sirta ka dambaysa? Waxay ku jawaabtay, waxaan ahaa mid akhriso aayatul kursi iyo 3 suurad ee Quraanka u hooseysa, mana joojin jirin marnaba. Sirta xasiloonideedana alxamdulillaah waa anigoo salaada subax ku tukan jiray waqtigeeda. Waxaana yaqiinsanaa xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, qofkii tukada salaada subax wuxuu ku jiraa magangelyada Rabbi subxaanahu wa tacaala. Sheekhi wuxuu dhahay, run baad sheegtay gabadhaydii, qofkii Alle la jira Alle ayaa ku filan. Isla waqtigaas waxaa khirtay darawalkii inuu u shaqaynayay gabadhii kibirka badneed, iyada ayaana soo fartay, soona adeejisatay inuu u keeno gabadhan. Markii loo yeeray gabadhii laguna eedeeyay afduubka, waxaa dacwadii ka tanaasushay gabadhii wanaagsaneed, wayna cafisay saaxiibteed, taasoo oysay. Waxay ku samaysay darteed saaxiibadeedan qalbiga wanaagsan, taasoo cafisay oo hanuunkana ugu yeertay. Haddaba saaxiibayaal, waa wax iska cad, Alle ma hoojiyo qofkii ku kalsoonaada, mana cidleeyo qofkii dhab u qaata wixii la faray. Adigana inoo soo qor qisadan waxyaabaha laga baran karo si ay dadka kale kaaga faa'iideystaan. Muuqaalkan wuxuu waano iyo tusaale cad u yahay, dad badan ayuuna anfacayaaye. Hadda inoo sheer gareeya.